meerayaasha marka xigta 8 gudee dayaxu maro marka xigta dabaylaha marka xigta tirada habeenka Soomaalida oo 365 habeena sida islaamka 7 ayaamood bilaha islaamiga ah marka waxa weeyaan way tameerayaasha kale maxaad noo sheegi karaysaa meerayaasha waxa weeyaan meerayaashu sida anugu aan marka dayaxii cadeed lagu daro waa 9 laakiin imaka subaxan saaka oo kale markii laba meero qurba imaka ayaamka toddobaadkii inala jooga mid weeyana salaadu halka ka soo baxay mushtar baa la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa oogla la yiraahdaa xagan maqribka galabnimadii ayuu ka muuqdaa oogle iyo libca muxuu ooglena waa la yiraahdaa libtoona waa la yiraahdaa waxa xagan galabnimada ka muuqda intii kale waxay ku jiraan dhicitaan iyo wareeg Ilaahay uu og yahay oo laba iyagu way wareegaan kolba caalamka Ilaahay meel buu geeyaa oo laga arkaa xidiga la yiraahdo saxal waa xidigyada wareegay kolba qaarada caalamka meel lagu arki karo marka gobolku ka dhaco xidigta la yiraahdo dagaarsayn leena fadhigeedu waa Hindiya laakiin kolkol ay Afrikadan dhexe sida uga soo wareegtaa caalamka ay xoogay socotaa hadana ku soo noqotaa xidigta la yiraahdo shukriya taasuna waxay ku maqan tahay qorrax 30 habeen ayay marka dhacsanaydii la socotay shamsa qorraxda afartan way la joogaysaa dambe halkaas dabeed ka soo baxaysa marka halka markii ka dhacdo ay xagga qorrax subaxeeda ka dhacdo ay ka hooyato 7 habeen bay maqnaataa xagga markii ka dhacdana 7 habeen bay maqnaataa marka imika 70kii 40 habeen ka bacdi ayay xaggan ka soo baxaysaa xasan waxa kale oo la sheegay in sidaad adigu qabto in ay isku xidhan yihiin qofka iyo xilligu dhasho dabeecadda qofku yeelanayo waxyaabahaas saameyn bay isku leeyihiin haayo Ilaahay ummadda uu samaystay reer nabi aadan adduunyada ku nool inta ka tira leegtay wuxuu dhalatay 8 gud marka hadiyo jaraale waxa xadiis baa hadiyo jaraale laba qof oo midna koonfur u dhashay Kismaayo kale midna uu booramo kale u dhashay oo aan cimrigood dabeecadooda la kala dhex fadhiisano isjecel baa jira labada qof marka sayniskooda maxaa laga soo qaadi karayaa inay isku god dhasheen laba qof oo aanad waligoodna isku taakilin oo jirtaan waa kala good anigu waxaan dhashay March 22keedii 66 tusaale ahaan maxaa arrinkaygu noqonaya anigoo kale March taasi waxay doonaysaa maskaxdu aad looga shaqaysiyo laguna fariisiyo bishaasi xagga marka ay Carabiga ka bilato waxa la doonayaa bal halkay kaga fadhiisan karto waana waqti dheer baan ka soo gudbay marka waxa weeyaa goodkan dayaxa iyaba la isqaabilsiinaya dayaxa iyaba la isqaabilsiinaya 8 good marka dadkan aad arkayso waxay 8 good maxaad uga jeedaa xasano waxaan uga jeedaa Ilaahay wuxuu abuurtay goodka la yiraahdo foocaar waa good rag iyo dumar wixii ka dhashay waa qani baa la yiri marka ifka haday yimaadaan waxa ku xigtay gudan waxa la yiraahdo hadii maalka oo dhan la wada siiyo waa hadii Ilaahay idinkiisa hadii Ilaahay baa ku shaqale hadii jaraale waxaad oran kartaa baa la yiri xeradiisa iyo maartay wixiisu marar dhigaan tacabkiisu waxa kale oo isku xiga maran iyo mareega dheer Ilaahay baana dee gudadkan meesha dhigay oo bini aadan mu samayn marka mareega dheer wax walba oo mareega dheer maranna dee Ilaahay baa hadii bidinkiisa kutubta ku taala cilmiga soo garmis waxa xiga wabi xawdala dadka wad ka maqash waxa ku xigta babac oo iyaduna xidiga ma leh taasna Ilaahay baa ku cilmi leh marka waxa kale oo iyadana xigta naaf madoobe wiilka ka dhashaa naafku madoobe ka dhashaa la dhigta safar looga yeelaa hadii sakala reerka isagu ba kaligu hadhabaalay naafka madoobe waxa ku xiga godka la yiraahdo tar ya tarna tolka dadka u dhalay baa liido kaasuna waa dad horkace marka hadda waxaasi iyadoo aynaan inaynu ku dambaabna aynaan jecelayn oo arrimaha Ilaahay tasarrufkan uu iska leeyahay oo xagga Ilaahay ku xidhan tahay gudadkuna saasi Cabdisalaam oo kaliya marka gudadku dadkan aad arkaysaa Ilaahay abuuray ee caalamka sidan u buuxiyay mid waliba caalamku wuxuu kaga leeyahay xagga duruufaha iyo xagga marka kutubta loo eegayo la leeyahay qofkaas waa maay qofkaas waa turaabi
qofkaasu ma garanaysaa buruudkiisu waa xagga biyaa xaggan maxaa looga eegayaa qofka sideed ummadda dhan imaka intaa nagu xerxeranay 28 good qof kastaba kii ilaahayfka ka keena waa nasiibkii adigu keebad dhalatay markaas 28 good anigu waxaan dhashay godka la yiraahdo foocaar waana godka 28 good ee dayaxu maro madaxda u ah oo waxa la yiraahdaa xagga carabigana waxa lagu yiraahdaa asad baa lagu yiraahdaa marka taariikhdan kale caadiga ah xasanow 28 good sidee isu waafaqayaan 28 good de waxay isku waafaqayaan bishu way ku bilatay kow way ku soconaysaa uun tira eeg ma ku bilatay habeen caawo waa bil labada mid bil saddexda mid bil shanta mid bil saasay ku soconaysaa waqti marka xalay toole waxa ugu dambeysay dayaxu wuxuu joogay faruur cirir godka la yiraahdo iyo xalada dayaxu taagna caawna wuxuu joogayaa jid barbaar habeen dambe wuxuu joogayaa jid gabar leh habeenka ku xiga wuxuu joogayaa jid diriq leh habeenka ku xiga wuxuu joogayaa lugud habeenka kale wuxuu joogayaa rab dambe maxay kala yihiin markaa meelaha uu joogay sheegaysa magaca guucdu waxa la kala yiraahdaa kolka ugu horeysa waxa la yiraahdaa faraaci 7 god faraaci baa la yiraahdaa 7 godna naafa la yiraahdaa 4 godna dirir baa la yiraahdaa maxaan ku dhahaa 4 godna waxa la yiraahdaa daalalo 6na waxa la yiraahdaa cirir isugee marka isku soo wada celisana waa 28 saasi marka magaca guudadkan dayaxu maraa shanta magac bay leeyihiin hay 12 bilood caadiga la xisaabsado iyo 28 good sidaba isu waafaqayaan marka xasano waxay isu waafaqayaan tiro guud waxa dee jirta oo isu waafajina marka waxa la doonayaa saasoo kale in maskaxda laga shaqeysiyo si isu waafaqayaan laakiin bilahan ku sheegaya saddexda bilood ee dayreed waxay ku bishaan laba good oo afarta dirirka iyo laba god oo daalala iyo saddexda dayreed ku bishaan laba godka ugu dambeysay maran la yiraahdo iyo afarta iyo lixda cirarkana waxa ku bisha jiilaalka todobada faraacida la yiraahdo waxa ku bishay guga todobada naafa la yiraahdo waxa ku bishay xagaaga saasay soo qaabilayaan marka